السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال soo dhawaada waxaan rabaa inaan barnaamij yar in la wadaago kaasoo ah in shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay soo kordhisay adeeg aad si fudud u xayeysiin karto dhammaan ganacsiyadaada. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo mar walba ka shaqeyso wax kasta oo horumarka qofka ah si shakhsiyan u taabanayo hadda waxay soo kordhisay adeeg cusub oo qofka uu ganacsigiisa iyo wax alla wixii uu markaasi uu rabo oo ku xayeysiin karo isaga. Marka waxaan rabaa saaxiib yaal inaan la wadaago barnaamijkaas qaabka loo xayeysiisto ganacsigaaga waxa lagu xayeysiisto. Waxaan rabaa marka inaan hadirtan barnaamijkii aan guda galno saa la socotaanba shirkadda Hormuud waxay leedahay adeegyo fara badan oo EVC oo kamid yahay internet oo kamid yahay caawiye oo kamid yahay macaan oo kamid yahay waxaa kamid ah sheeg warkiisa kamid ah suuqa sahla kamid ah waxyaabo badan shirkadda Hormuud leedahay. marka kan wuxuu kamid yahay barnaamijyada shirkaddan ay soo kordhisay oo aad ku xayeysiin karto goobtada ganacsiga. marka waxaan rabaa hadirtan inaan barnaamijkaas aan la fiirino qaabka ugu fudud ee barnaamijkaasi aan iskaga diiwaan geli karto. marka waxaan ka codsanaa marka hore inaad fiidiyogan si tartiib ah ula socoto waa step la marayo marka haddii aad boodso xamudaan oo stepka ah ka khaldamo marka waxaan rabnaa inaan stepka koobaad aan hadirtan bilowno qayb marka horeyso waxaa garaac doontaa xidig 141 afar gees ayaa leedahay kabacdi okay ayaa ku leedahay markaas waayahay markii oo intaas ay ku soo baxdo oo jeegta adeegyada shirkadda Hormuud caawiye macallin fariin wadaag suuq sahal marwo tacab iyo next laba ibar ayaa taabanaya markaas laba ibar taabanaysaa laba ibar taabato page xiga ay ku sii gudbinaya shaafi aqoon maal kayd my status kedis marwo balas brevious haddana waxaa leedahay ibar taabanaysaa wuxuu ku leeyahay main uu ugu jira warka isii fariin wadaag ka bax brevious marka waxaan ku leeyahay 0 aan ku laabanaynaa oo kan hooseysa ah markaan ku laabano waxaan ka dooran doonaa lambarka 10aad ayaan taabanaynaa 10 ayaan leenahay waayahay 10 markii aan taabto wuxuu leeyahay sameyso ama dooro status kow ayaan taabanaa kow markaan taabto status joogto ah ayaan rabaa markaan aniga iyo status dadweysan tusaale hadeertaan ka bilow ilaa hadhow saacado ayuu kan labaad ku leeyahay laakiin ani joogtaan rabaa ilaa iyo bishan camalna joogtisto lambar kow ayaan taabanaa waa kaasaa wuxuu ku leeyahay sameyso status adigu gooni ah laba qaybaha statuska dooro marka anaa sameysanayo saasaan dhahaa okay statuskayga hore waa kan iga soo wac lambarkan mahadsan ayaan marka hore aniga qornay hadda waxaan rabaa inaan saho fadlan page-ka like isaar mahadsanid marka adiga wax allaala wixii aragto oo ku qoran kartaa inta markaa qorto wax allaala wax aragto ayaad ku qoran kartaa okay aan leeyahay markaas hadda wuxuu yiri waa lagu diiwaan geliyay statuskaaga aad dooratay okay marka wuxuu leeyahay ama maanu ku laabo ama ka bax marka waa iskaga bixinaa sidaas waxa ku dooratay inaad xayeysiin marka ku qorto marka meesha aan ku qoray fadlan isaar page-ka like ayaad adigu xasaari kartaa wax alla harto hebel dugaan ganacsi wax harta saari kartaa marka saas ayaa Hormuud adeegaas ay noo soo kordhisay runtii waana adeeg aniga markaan fiirshay wax ku ool ah loo baahan yahay aad ay u mahadsan